muhiimadda ugu badan waxa way xalay waxaan daawanayay telefishin wuxuu ka hadlayay bahashan dumarku ismariyaan hableenu ismariyaan inkastoo la yidhi inamadiina imika way bilaabeen dhallinyarada waxa ugu daran waxa weeyaan qofkii waxaa la marinayaa diirkiibuu ka saarayaa xanuunkiibuu u nugleynayaa sab saxaraha wixii afrikadan saxaraha oo dhan innaga ilaa 6 dowladood oo inaga sukeeyaa dadka waxaa ismariya la sheegi dabadeedna waxa weeye waxay u nuglaanayaan kansarkii waxay u nuglaanayaan macaankii waxay u nuglaanayaan wax walba dee qof bini'aadmiyo diirkii laga saaray ood garanaysa aan ku wacyigelinno dhallinyaradeenna in dawadaas la joojiyo waayo jidhkaagii ayay furaysaa waa la qabaa dee qolada afrikaanka ee qaylinaysa dadkoodii sawiraysa dhibaatada ay leedahay dadka tusaysa si kuwa kale uga badbaadaan kow niman kaloo maxamed cabdiraxmaan iyo lahaa nin halka ka hadlayay iyo dawada indhaha dawada gabdhuhu ismarinayaan ay isu qurxinayaan hala joojiyo marbannaga gabdhaha quruxdooda ka joojin karayn oo waxaa nagula hadlaysaa wax dhibaato adduunka kaleba dhibaato ma gaadhsiiyeen ma kuweenu gaadhsiiyey runaan isu sheegno yaynan isku maaweelinin waxaan jirin dawad jir dishaa ma jirto kow